baan waliba ugu faraxsanahay dareenkayga farxadeed lama soo koobi karo markaan u eego beesha isoo xulatay aan ka soo dhex baxay sida qiimaha iyo sharafta badan ee ay beeshaydu iigu soo kalsoonaadeen ee ii soo xuleen haddana gudihii u soo dhaadhacay oo dowladda Puntland iyo guddiga khilaafaadkaba ay iigu soo qanceen aniga oo waliba keligay gabadha aad baan ugu faraxsanahay wallaahi waan ka xumahay inaan maanta gabdho garba ah aanan haysan oo gabdho garba ah ila joogin aad baan uga xumahay waan jeclaan lahaa inay gabdho garbahayga fadhiyaan oo aan ragga ka weheshado laakiinse way dhacday inaysan ii imaanin aad baan farxadayda iyo situationkayga kalaba ay dareenkaygu u kacsan yahay oo maalintii ugu horeysay aan hoolka baarlamaanka soo dhex fadhiisto anigoo xildhibaana marar kale waan dhex fadhiistay laakiin anigoo xildhibaana oo maalintii ugu horeysay aan soo dhex fadhiisto aad baan u faraxsanahay oo gabdhahaas tartamay ee waayeyna waxaan leeyahay waa u hambalyeynaya waxaan leeyahay isku day fiican dadaal fiican bay soo suubiyeen laakiin maysan noqon inay maanta ka mid noqdaan ayagana waan u hambalyeynayaa maanta waa maalintii koowaad keli socod baan ahaa cidna lama sheekaysanayn laakiin iyaga sheekadu way isugu wada baxaysay balse insha Allah bismillaahi kariim ragga ayaa ka samaysanaya qayb aan saasoo kale ula sheekeeyo marka waan helayaa kuwa gabdhuhu booska ii gali lahaayeen kuwa ii galo garbahayga fadhiista oo aan wixii markaa jira ayagana ka wada sheekaysano